deeqdan lacageed ee maanta wasaaradda horumarinta haweenka iyo daryeelka qoyska xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya gaarsiisay qaar ka mid ah dadkii dhooliyaasha ay ku dhaqan gobolkan Banaadir. deeqdan lacageed ayaa waxa cadadkeeda gaarayay 7 milyan oo shilinka Soomaaliga. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo daryeelka qoyska mudane Maxamed Cumar Nuur oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in deeqdan aysan ku ekeen maanta oo kaliya balse ay sii wadi doonto bil walba wasaaradda hadda waxay bilowday howl kale ah dadka xogaa taagta daran amoolayaasha qoysaska amoolayaasha ah inay caawiso inkastoo caawintaasi iska yar tahay laakiin bilow waaye waxay rajeynaysaa wasaaradda hawshaas inay sii bilaariso maanta waxay u bilaabaysaa amoolayaasha lacag dhan 1 milyan bil walba inay siiso amoolayaal cayiman marka si ay ugu kaalmeystaan guryahooda wixii ka dambeeyana wasaaraddu waxay rajeynaysaa inay hawshaasi sii bilaariso marka maanta waxa isugu imaanay arintaasi marka dadka wada jeedaan waxay ka yimaadeen qoysas waa aabiyaashii shaqeyn lahaa iyo hooyooyinkii oo amoolayaal ah marka wasaaradda inay xareyso xanaano gaar u samayso way ahayd laakiin hadda waxaan bilaabnay inaan biil yar siino bil walba intay wasaaradda sii jirtana waxaan rajeynaynaa inaan biilkaasi joogteen doono. deeqa Maxamed Axmed, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.